Hashim Dhaqane Maxamuud oo sidoo kale loo yaqaano Hashim Maxamed Khaliif ayaa ka soo muuqday maxkamadda sare ee Nairobi Talaadadii 21 Janaayo 2025 isagoo beeniyay eedeymo la xiriira dilal loo geystay 4 dumar ah bishii Oktoobar sanadkii aan soo dhaafnay ee 2024. Dambiyadan oo si weyn uga argagixiyay waddanka ayaa ka dhacay labada gobol ee kala ah Machakos iyo Nairobi. Hashim oo ka soo hormuuqday maxkamadda isagoo adeegsanaya qaab fogaan arag ah oo kaga soo biiray xabsiga dhexe ee Nairobi ayaa beeniyay dhammaan eedeymaha kuwaas oo ay ku jiraan dilalka Dahaba Daa'uud Saciid, Aamina Cabdirashiid Dhiir, Musayba Cabdi Maxamed iyo Deeqa Cabdi Nuur Gorane oo dhacay waqtiyo kala duwan iyo meelo kala duwan. Dacwad-oogaha guud ee Kenya ayaa sheegay in 3 ka mid ah dilalkan la geystay isla habeenkii u dhaxeeyay 21 iyo 22 Oktoobar 2024 kuwaas oo ka dhacay Parklands, Nairobi iyo Kiumbi oo ku taalla magaalada Machakos. Dilka Deeqa Cabdi Nuur ayaa lagu soo waramayaa inuu dhacay intii u dhaxaysay 29 iyo 30 Oktoobar 2024 taasoo ka dhacday Valley Height Apartment ee magaalada Nairobi. Hashim oo xabsiga ku jiray tan iyo horaantii November sanadkii 2024 ayaa u mariyay qareenkiisa Akinyi Owino codsi uu maxkamadda u gudbiyay isagoo doonaya in damaanad lagu sii daayo. Si kastaba ha ahaatee, garsoore Kanyi Kimonde ayaa faray xafiiska dacwad-oogaha guud ee dalka Kenya inay u soo gudbiyaan dhaar ka soo horjeeda damaanadda muddo 7 gudahood, taasoo difaacu ugu jawaabi doono inta aan la gaarin maxkamadda xigta oo la filayo inay dhacdo 11 Febraayo sanadkan 2025. Dacwadda ayaa la qorsheeyay inay halkaas ka sii socoto isla maalintaas iyadoo ay si muuqaal fogaan arag ah ay u guddoomin doonto garsoore Marwo Muigai. Dacwad-oogayaasha waxay sheegeen inay si rasmi ah ugu soo horjeesan doonaan codsiga Hashim ee damaanadda iyagoo ku sababeeyay xaaladda culus ee eedeymaha lagu soo oogay.